ismaamulka Mandera waxaa ku nool dhalin aad u tiro badan. Boqolkiiba 70 dadka ku nool waxa ay ka yar yihiin 30 jir. Dhalinta intooda badan waxa ay wajahayaan dhibaatooyin aad iyo aad u badan. Haba u badnaatee shaqo la'aanta. Waa maxay caqabadaha ugu waaweyn ee haysta dhalinta Mandera? Ayaanu diradda ku saari doonaa barnaamijkeena danta dalalka dariska axadani soo socota. Yuusan ku dhaafin oo dhegta waraadici Dawa FM gorsheegtadu kolkay soo dul istaagto 2 duhurnimo. kula wacan dhegeyste ku soo dhawo barnaamijka toddobaadlaha danta dalalka dariska oo ku qaada dhigno arrimaha shacabka xuduud wadaagga iyo danta bulshada dariska. Xalqada maanta waxaan diradda ku saaraynaa awoodda da'yarta laga filan karo. Ismaamulka Mandera waxa uu leeyahay da'yar aad u badan, boqolkiiba 70 dadka ku nool waxay ka yar yihiin 30 jir. Dhalinta ayaa wajahaya dhibaatooyin tiro badan sida shaqo la'aan, waxbarashada oo caqabad badan ka soo food saaro iyo fursad la'aan. Waa maxay caqabadaha ugu waaweyn ee haysta dhalinta Mandera? Inta aanu u gudgelin dooddeena maanta aan dhiirigelinno dhalinta dadaalka badan ee u dhabar adeegaya caqabadaha Mandera, dhalinta fikradaha wanaagsan kaga baxaya culeysyadani. Dhibaatooyinkaasi oo jira ay haddana mar walba leeyihiin lana imaadaan siyaabo ay ku maareeyaan noloshooda haddii ay noqoto ganacsiyada yaryar u adeegidda bulshada miseba codadkooda oo u adeegsadaan isbeddel doon. Maanta waxaanu madal siinaynaa dhalintaasi dadaalka badan oo aan ugu faa'iideynayno siday u wada dhisi karaan mustaqbal uu da'yar walba oo ku nool Mandera horumar ku samayni karo. Barnaamijka ayaa ka kooban xubno xiiso badan, balse marka hore aynu maqalno guddiga xalqadeenna. dhibaatooyinka aanu marno way waji badan yihiin. Mandera waxaa nagu haystaa waxbarashada oo liidata mar walbana saameeya amni darrada iyo kaabayaasha oo xun. Shaqo la'aanta iyaduna waa caqabad kale oo weyn. Fursadaha oo yar ayaa haddana qofkii u qalmayay la siinaynin. Marka dhalin badan ayaa u jeesada ka shaqaynta xamaalka iyo xuduudka, taasi oo si joogto ah loogu tiirsani karin. Sideen dhalin ahaan u noqon karnaa kuwa u dhabar adeega la qabsiga helana siyaabo kala duwan oo aan ku maarayn karno nolosheenna iyo mustaqbalkeennaba. Qaar ka mid ah da'yarta Mandera ma sugayaan isbeddel inuu la soo darso, balse ayaga ayaa isbeddel samaynayaan, sida in ganacsiyada yaryar ay ku biiraan, dhaqdhaqaaq fara badan ay sameeyaan. Runtii in badan oo mudan ku dayasho ayaa jira, balse haddana waxaa loo baahan yahay fursado joogto ah in dhalinta ay ku tiirsanaan karaan. La soco anigoo ah Ibraahim Nuur Cabdiraxmaan, waxaana barnaamijka marti inoogu ah Ibraahim oo ku magac dheer Gurey Bunja. Waa tahay aad ba u mahadsan tahay, ku soo dhawo barnaamijkeena. Waa maxay caqabadaha ugu weyn ee dhalinta ay wajahayaan? caqabadii dhalinta oo dhibaatada haysta waxaa ka mid ahay shaqo la'aantan, waxbarasho la'aantan. Tan kale waxa waa in opportunity ma qabaan, waxa uu meel wax ka raadin karaan oo heli karaan ma qabaan. Iskuul dhammaan meel iska fadhiyaan, tala ma hayaan, income generated activities program ma jiraan. Tan kale even caqabada haysata qaarkood jiri wax haysata medical dhibaato la'aantaas wax haysata. mar dhalinyarada waxaan maleynaa dhibaatada zaid haysata kamid ah waa taas opportunity la'aan. Tan kale dhalinyaradu way sii dhadhalinaysaa, way sii badanaanaysaa sidii loo socdo opportunity la'aan dhaxays. caqabadahaasi shaqo la'aanta aad soo tilmaamtay, maxaa xal u ah isleedahay caqabadahan mar walba la farafiiqo? Inta badan dhalinyaradu waxay ka cawdaan shaqo ma haysano, arrimahan aad bay county ugu badan yihiin. Marka maxaa xal u ah isleedahay? xalka loo yahay kwanza waxaan maleynayaa anaka sanad walba ilma university noo dhameynay, college noo dhameynay, qaar kuwa form 4 dhameynay. Haddii la isku daro dhalinyaradii hadda soo baxeen cid xaafad walba oo Mandera ka mid ahay oo borderkan county ka mid ahay, dhalinyarada in waxa way boqolkii 70 shaqo la'aan waa. shaqadii county siinayeen waxa la soo dhajinaa 30 qof la soo dhajinaa 30 waxa helaa each sub county magaalada Mandera waxa ka soo baxay 6 sub county. 6 sub county waxa helaa hal qof laba saddex helaa. qaarkood dadka miskiin ma ba helaayeen. marka shaqo la'aantan abuurkan jira oo dhibaatada keenta zaidkan waa dhalinyarada soo badanaanay, iskoolka la dhameynay, shaqo la'aantan taas keentay. tan kale waxa lagu bixi lahay haddii oo shaqo la abuur lahay
oo shaqo fiican la abuur lahay devolutionka countiga waa kan la foom gareey shaqo la abuur lahay oo sidii loogu bixi lahay ama company la fur lahay becsharadii la fur lahay ama dukaamo la fur lahay ama labadan boodho shaqo fiican laga heli lahay dhalinyaradu waa shaqayn lahayeen waxa yeelay lacagtan oo waxa way for example countigan waxa way dadka shaqaynayeen waxa kamid ahay 1.5 waxa way 4 billion shaqaale lacagtan hadii Mandera ku soo celin leen meeqa dhalinyaro shaqo ku celin lahay meeqa dhibaato dhamaan lahay meeqa shaqo laga bixi lahay dukaamo la fur lahay lacagta rotation noqon lahay lacagta uu muddo ku wareegan lahay Mandera town ilmi shaqo heli lahayn ma yeelada meel casay aan fur lahay meel ku na fur lahayn waxa la badan fur lahay dukaamo fur lahayn okay shaqa abuurkan county shafiicana si abuur lahay maxay yeelay lacagta rotation ka socona circulation lacag la'aan dhalinyarada noqon lahay dhalinyarada hadda soo baxeen qaarkood darogada si galayeen maxay yeelay shaqa la'aanta yeela si aan ugu bixi leen xaalkan ina job creation subin income generate activities subin maxay yeelay shaqadan university college lama sukara meel warshad la furlay oo xambada la furlay meel warshad weyn county la furlay maxay yeelay county-gan hadda soo laabatay Machakos iyo Makueni Charity Ngilu meel leedahay furti Afrika waxa la kifuta kibwana nimanka waxay furleen meel leedahay weyn ay fureen oo ilma ku shaqeysanayn hadii county maanta furlay meel weyn ama dadkii oo dadkan taajiriintan oo ganacsigan jirleen wax weyn ku furleen meeqal shaqo keenleen hadda ninkan desit amal ila qeer waxa la badan furi dad shaqo ku heleen marka waxaan dhigi leenay umudir Mandera county-gan job creation hasubiyan dadkii taajiriinta magaalada kontrata magaalada ku soo laabtaan bashara furan marka dhalinyarada county madda macleen shaqo fiican ay furleen adana waxa la keen lahay program iyo plan strategic oo shaqo lagu abuur lahay oo wax bilaareyn lahay oo dhalinyaradan shaqo abuur ku helaan saas dhalinyaro shaqada ugu bixi karaan haddaad nala wadaagto sheekooyin xiise leh oo dhalinta Mandera isbeldel doonka ay ku howlan yihiin waxyaabaha ay sameeyaan maxaad nooga sheegi kartaa waxaan hadda dhalinyarada youth-ka kamid ahay hadaan chairmanka dhalinyarada youth-ka kamid ahay oo magaaladan ku jira ilmaha dhalinyaro fara badan ICDO ilmaha dhalinyarada lay waxay bilaaween meel oo saaluun gabdha lagu subinay meela oo hadana sharqaan lagu subinay waxa keentay meelo badan ay fureen oo ugu yaraan ilmaha oo 300 400 oo la teenreen garay oo shaqo heleen waa aragnay dad badan oo group oo dana shaqo lagu tusi oo group la form garay naagay xaana amal bula power waxay fureen meel xaana ay fureen groupkaas kulli xaana ay gataan meelo badan jirto train lagu subiyo oo dadkii oo lagu train garay oo shaqo fiican ka heleen oo shaqadaas way dhacday tan kale business-ka nimankan hadda oo hoteelaha haystaan job creation ay subiyeen dhalinyaro badan shaqo ku heleen waa aad u fiican waa mar dhalinyarada programkan hadda maanta ay ku faracsan jireen kormar galeen waxa way shaqadan oo groupkan oo ay utadan ay subisteen oo niman badan oo dukaan ku furteen way jiraan markaana ugu yaraan oo 300 oo youth oo ugu yaraan 200 oo youth oo neeboy way jiraan oo arintan ku fureen tan kale maanta dhalinyarada oo salaaba happy youth maanta oo ugu yaraan 300 ilma isku yimaadeen lacag ay caabiyeen soon ilma waxa ku siinayaan Ramadan kana oo ku saxdeynayaan marka barnaamijyaal far badan jirto dhalinyarada oo create gareen oo opportunities seen oo shaqo ku heleen for example hadda Zada company nin oo waxa way meel bi u furti hadda job creation almost 20 people oo siinaya meel badan dhalinyarada oo soo baxeen oo hadda ilaa qiraasi shaqo oo furfurteen dhalinyarada shaqo ka siileen way badan yihiin asaab ma jiraan dan ku sheekay lagama baxay marka waxaan rabi leenay ka sii badan ina barnaamijkan la sii furfuri lahay oo ilmo meel walba shaqo la gelin lahay qabiil walba magaaladan ku jiraan oo hotel fur lahayn maqaayad fur lahayn wax fur lahayn way badan yihiin for example Amara hotel Ismail Jarri waa furi hotel furi dhalinyaro far badan waa nin dhalinyaro uu kamid yahay job creation sidad badan meesha aad shaqo ku hela ilmi hadda oo for example gabadhan hadda kushkushila oo saaluntan leedahay meel ay furti trainer gabdho badan siisi 100 gabdho ay siisi gabdhay badan hadda waa kuwan ayaga naftigooda ay sii barteen meel ay sii furfurteen waxa way aqaba oo dhalinyarada horumar siinayeen hatta way jiraan ilmaan DJshan ilmaan oo TikTok kan camera kan subinay creation far badan subin ilmaay train gareen shaqo ku raadinayn job creation oo ICT way jiraan oo ilmaan qabtaan marka waxaan dhihi leenay dhalinyarada naftigooda ay fadhiisanin job creation far badan jirta tala far badan jirta had for example hal qof wax furi kara ana youth kan kamid ah dhalinyarada waa arki meel badan la furi horumar ka siilayaan meel fura sidii dhalinyarada shaqo ku helayeen storyal far badan dhigteen waa dadaasheen laakiin dhalinyaradii badan oo la koobi karin oo shaqo la siin karin sidee dawladda iyo hay'adaha iyo xitaa ganacsatada ay ugu caawin karaan dhalinta ka soo kabashada iyo waliba ka gudubka caqabadaha haysta ee ka dhawaajisay caqabadan aan ka dhawaaji way far badan tahay my brother lama koobi kara
dhalinyaradu waa arkaysa darogada ay ku biireen qaarkoodii shaqa la'aanta dartood darogada ay isu biireen qaarkood waxyaalaha xun ay ka galeen wax badan anta magaalada lagu sheegay qaarkood tuuga ay sii noqonayaan marka waxaan dhihi leeni saddex qayb dhalinyarada sidii aan chairmanka dhalinyarada youthka reer Mandera oo magaca guriga Bonjaye waxaan fiiri hal meel oo hay'adaha ku sacdin karayaan hay'adaha meelaha workshop train capacity way jiraan ay subiyaan train capacity way fiican tahay way dadaaleen hay'adaha for example way dadaaleen far badan hay'adaha Mandera ku jiraan qeyraalisi way dadaaleen laakiin waxaan dhihi lahay arrintaas si loo gudbi lahay way dadaaleen train capacity loo gudbi lahay sideen ku create gareyn karnaa income generate activities toban dhalinyaro sideen ku siin karnaa jarneeta oo hay'adaha ku subin lahayn oo kawash ku subin lahayn toban ilma seel isku siin karaa qalabyaal wax lagu subin lahay hadda waxa way dhalinyaradu u sheegi lahay naftigooda inay ka dhaabacaan hadda shaqadii la qabanayo man hand power la shaqadii gacmo waa shaqadii waa laga dibaa tan kale see ilma lagu create gareyn karaa computer boqol cab computer la keen lahay meel dukaamo loo furfur lahay because of organization way kari karaan tan kale county hadda amal 15 billion amal soo galays lacagtii hay'adaha la isku dar lacagtii oo revenue la isku dar wax walba la isku dar sidii bilokero dar dhow loo sheegay ma sheegin 15 billion way soo gashaa aniga hadda aqrin naftigeena tawdita general budget datan saasoo kale waxaan dhihi leen county waa dawladayni waa dawladda reer Mandera waa dawladda nagleenay oo 2013 devolution oo baasmarin dhalinyaradii hadda way si badanaanaysaa school waxa dhameynay university college waxa dhameynay qaarkoodii shaqa la'aantan waxa suubin leeni haddii aan dhalinyaranay wax fahamsanay waxaan arkay how can you give an opportunity to our children ilmaani si opportunity ku siin karnaa wax ku qaban karaan si lagu create gareyn karaa meel oo company meel oo program lagu subin kara geedaan la subin kara dhulkaan la xaqa kara حتى through local government اللي يجري أنا لكن through municipality Madagascar قال لعك تسوق له سؤال لعك فربضا climate change الحياة فربضا سوق له اللي from example حتى كون قف ولا كرقرة حد واحد إيه governor قاو استاجي شغال أنا promotion كان دتك اللي سيناي from example دتك نقف كوير أو job group كي أو فرت شو كون قادنا رب job group رب وعسر باتي دبي دارتها وحنا على استاجي لعك تان أو لو promote كريه لين من كاونت كجنا وعلى سين كرا 1000 people job creation oo dhalinyarada lagu siin karaa county way subin karaa waa lagu siin karaa dhalinyaradu way ku heli karaan hay'adaha naftigoodii waa dadaaleen vopagan women for peace kan abiyab deegan isaga nimankan waa dadaaleen hakofka nimankan kulli waa dadaaleen hay'adahan oo ata ku ICT way jiraan train capacity way subiyeen dhalinyaradu wax waa ku fahmayn laakiin dhalinyarada lacagta ay capacity wax ku qabansan karaan ma hayaan waxaan dhihi leenay job creation opportunity income generate activity waxa la small business shaqada yar لغو أبور لاي لعيتو بقولكو كل سين لاي أوكي بنجياشن عمل إيكوتي كان كيسي بيدان دليل لعيتو داير سيليا لحاجة أو ربا قبل أو لغو سين كر بقول كو درسين لاي أو كاونتي غفنا يير لاي نمين كان داير دان فروم مندرا كاونتي كان شنكون بقول درسين لاي أو لعيتس دبقل لغو سبي لاي ميل لغو فور لاي I think إسبدل وكين كران دليل شغف في عقويل كران هرمر وكويل كران إسبدل وكين كران Mandera waxay ka mid tahay gobolada dawladda Kenya ay aad u gacan bidixayn jirtay balse hadda waxaa ku duugan fursado badan oo aan weli la taaban waa maxay fursadaha dhalinta ay ka faa'iideysan karaan kwanza waxaan ku sheegayaa my brother Ndawa FM 2013 devolution aan baasmarini devolution ki waxay noo keentay lacagta awal Kenya joogi jirtay Mandera oo noo keenay lacagtana soo galay fursadina 15 bilyan wana soo galayaan hay'adaha fara badan lacagtu ay soo galayaan ilaa qeyrasi hay'adaha kwanza shaqadooda waa la arkaa waxay qabanayaan qaarkood waa loo jeedaa marka waxa way lacagtan oo noo soo gashi haddii aan wax ku qaban leen fursad aan ku qaban leen dhalinyaradan shaqo ku create gareyn leen waxa la badan opportunity la create gareyn karaa waxa la kale opportunity fara badan jirta for example xambadan ramo la subin karaa factory lagu subin karaa elo waxa jira smith lagu arkale waa la subin karaa okay blocksiga waa dhalin karaa blocksation fara badan oo county way subin karaan mineral resource fara badan magaladan jirta okay quarrygan la subin karaa waxa la badan dhalinyarada waa loo create gareyn karaa wax plan kan oo family gata oo plan farm basharadan oo beerta waa loo create gareyn karaa beer for example Mandera inta ka soo belo baka og beera jirta farming waxa way smarting project oo farming jirta lacag lagu create gareyn karaa dhalinyaro loo yeer karaa beer oo planning beer lagu subin karaa beer way gali karaan opportunity fara badan jirta okay waxa subina hatta from example maanta waxa la caabin karaa oo marketing loo heli lahay xaaqta dhulka laga urur lahay meel warshado lagu furi karaa okay musbara waa la xabin karaa boxing waa la xabin karaa Nairobi opportunity saas jirto county Subian Mandera waxa ka hor istaagay Ethiopian kan baalka marka xabiyaan meel kale ay geeyaan had way soo galeen Ethiopia fara badan jirta dawladii reer Mandera way ku shaqeysan laayeen had waxaan dhihi leeni dhalinyarada naftigooda inay kor u kaxaan
shaqadan opportunity dad walaytan ku shaqaysanayaan fiiri gabdhahan shaqaale shaqaysanayaan waa shaqo fursuwa gabar baadi waa soo wadi karnaa shaqadan waa gelin karnaa inkastoo cudud oo liya oo bood Ethiopia Soomaali Kenya loo dhibi karin oo wax loo diidi karin maxay yeelay jiraanku way sishinayn diris wanaag in la suubiyo raba in la isla shaqaysto raba laakiin opportunity dadkan oo soo kacayin mandaraskii maadan sharci la'aan imaadayn oo waxaan oo shaqada qabsanayn lama rabi leen waxaan rabi leen dhalinyaradan opportunity fara badan magaalada ku jiraan way tuuran tahay xaagtan hadda Ethiopian ka shaqaysanay kareeba hadda waxaan arkay shalay oo maasha Allah aan arkay meeshan data banaadir ilmo dhalinyarada jirta kunay shalay dadada ka gadanay kunay subinayn haye ilmo qaarkood gaariga ku soo cabsadeen qaray soo cabsadeen opportunity dadku ku shaqaysanayeen marka waxaan dhihi shaqadii hor taagnana ma laha opportunity fara badan jirta aan ka shaqaysanahay borderkan waxaan dhihi dawladda nafteedu inay xiraan kisto yar oo Ethiopian dadkan Ethiopian inta ku jiraan naftooda dhulkooda ku laabaan resource-ka waxaa loo tiray dadkii magaalada inay ku shaqaystaan tan kale maamooyinka cidda joogaan waxaan dhihi gabdhayni oo baadidkii madleen shaqadan bara oo gurig bara maxay yeelay isbedel keeni dhalinyarada dhibkaan iyo qaarkan shaqada abuur la'aanta way ka bixi karaan maadaama aad in badan ka soo shaqaysay gobolkan waa maxay hal abuurka iyo dhaqdhaqaaqyada horumarineed oo dhalinta Mandera ay ku dayan karaan marka waxaan u sheegi karaa dhalinyarada aniga waxa dhalinyarada youth-ku aan soo shaqay magaalada Zayd aan soo shaqay waxyaalo badan aan seminar aan ku soo jiray meeting fara badan ku jiray meeting-kan kuwaas la khayraasi diris wanaagan Ethiopia Soomaali Kenya gan hadda oo socod oo nimankan wadaan diris wanaagan waxa way wanaag fiican ay jiraan ku keeneen kala dambeysay عشمة سيد بعشرة الجوا بورلاي سيد capacity أو لو قبل لاي سيد الأجيال كور مر لاين سيد ناقاش شقة كوا بورلاين وعلى بدن درسونا كان هذا program كان يقول وعلى فدا في عنا نوكينين مركان وحن الأجيال دي لا يكوا بورن كران الأجيال داني for example حتى وحن أركينا تاكسي وكذا كران بير وكشقين كران ICT كان for example computer كان وكشقين كران okay job creation كان وحسوبين كران for example كان ألعاب باركان أو ألعاب دكان ليه كان دكان مكلا وكجد كران وحلا بدنا job opportunity تنكله وحسوبين له ICT إنه program كان أبدنا هذا اللي يرد وشقة كله كران تنكله training أو teacher نمده واحد برلا إنه كران وشقة أبور تصفر بدنا اللي يرد وكين كران وحنا أركلاي اللي يرد كبيران وحلا man power hand أو واحد شغل وشقة قولة تايدسان شغال فرق بدن هيلي كران تنكل program كان capacity building كان أو واحد كوسو بيسان كران وهيلي كران مركو عن إيه لا شغال أبور كان فرق بدن وهيلي كرتين جحنتين كوش شغيستا يالله فديسانين تنكل أن نفتكر دليل ما سوى عن ور كان أركاي دوان أو مغالات كوجيران أو دليل كشغين كران for example غرياسة اللي لسه يوب بدن هذان غرياسة اللي لسه شغال وكالي كران تنكل وحكالي كران شغالان أو قرانات مغال لقصو عبين كران وهيلي كران تنكل train كان capacity برا الكغوري اللي فدين ليه هذه فدين ليه تيك توك كان يو وعلان أو program كان ICT ماركت أو لوجود ذلك لاي أو بحالة كاركود برامجال فربود لوجود الكر بس وقال كران قبل أو عندي ليش قابور كان سبيلا كوما نروبي كسو كذا ويجد كران كوما أنت وحوي 700 وبزنس وكويل كران دليل ساسوا دي شاتلا سوق حد مقارنة بقولكي سوق اللي كان كوش غسنا تذكر من دار حد شقة كم قبطان مع يلي قعنتو هنا سعران وافريستان وحندي لين قعنتين فرفرتا شقة فرا بدن أو أبو رجرت دورة أنا توالي قد كرا ولا معي كازي وحول بوا وأنك ولوش غسنا كرا كرا وكوش غسنا كرتين جوري واديس كرتين كلاس واسوبين كرتين ICT كان واقل كرتين وعلى بدن أنا أنكواركي marka barnaamijyal fara badan jiraan in laga fariistimo in la shaqeysto waxa mar walba maqalnaa ganacsiga xuduudda sidee dhalinyarada ugu faa'iideysan karaan dhalinyaradu ka faa'iideysan karaan maxay yeelay kwanza dhalinyarada capital ina haastaan waa fast maxay yeelay ninka ana waxaan dhiilay nin waalid oo family dhan oo magaaladan ka dhashtay inuu dhalinyarada kwanza capital siiwa dhalinyarada aduu shaqo abuur waa heli karaa aduu capital hel adii hay'adaha wax siiyaan adii horumarkana adii ka dhawaaji arkaysa oo county wax siiyaan hadii family iyo dadka siiyaan capital way heli karaan shaqada abuur badan far badan cadudku way ka jiraan alaab sokor ay soo gelin karaan Ethiopia diiray ka soo qaad karaan adi waxa nimanka u baahan yihiin waa jiraan waxana ku baahan waa jiraan waxa Ethiopia u baahan tahay u baahan yihiin dhalinyarada shaqo far badan cadudku ka shaqeysan karaan hadda arkaysa kuwan kareetada meeqa way ugu yaraan 50 qof oo dhalinyarada alaab soo qaada intii maada kareetada ka shaqeysanay kareetada ma meesha leh haye kuwan Ethiopian kan waxa way doonta soo gudbiyaan intii way keenaan shaqo far badan oo abuur way jirtaa lack of capital waa youth-ku waxa dilay capital lahaan waa shaqo fara badan oo leeyahay ka shaqeysanay labada bood Ethiopia Soomaali Kenya triangle waa jiraan hadii diris wanaag la wanaaji oo wanaag diris la wanaaji dhalinyarada waxaan ilaahay inay meeshii aadaan Soomaaliga aadaan oo ta bood soo maraan oo keensan karaan alaab oo ay rabaan sokor waxaan kaleen lama rabo wax darooga kamid ah wax sharci gudubka hay wax sharciga haleena lama rabo wax dawladda iyo labada dawladood dib u keena
lama rabo diris wanaagan hay'adan diris wanaagayaashan ka mid ahay shaqada ay abuurayaan waa shaqo oo ammaan iyo sidii horumarka lagu horumari lahay bixmushtarka marka anigu waxaan ka dhawaajin lahay dhalinyaradii waxay ku shaqaysan karaan shaqo fara badan alaab ay soo gudbin karaan sokor ay soo gudbin karaan digir ay soo gudbin karaan koob ay soo gudbin karaan waxyaalo badan keen karaan sidii oo sajil ay ku dhibayaan waa jiraan qaarkood inta ku shaqaysanayin marka waxaan dhihi lahay shaqadan aan dhihi lahayn hal qof inuu ka shaqaysto maaha inay indhay u furaan dhalinyaradii kale adana nafsigooda soo galaan maxaa yeelay dhibkana haastay my brother Dawa FM dhibaatadana haastay waa shaqada hal qof bis u xiranta lama rabo Kenya da soo laabatay halkii shaqo waxaa loo dhibaa 100 dhalinyarada loo kala gegeliyaa haddii nin shaqaysana caasinimo waa loo diidaa marka dhalinyarada waxaan dhihi lahaa fadhiisanina 200 kun oo ku bilaw kartaa Ethiopia aad alaab ka soo qaad inta qaad digir cagagay labada meel indha furu kala fiirsa ana si ana aad dhalinyarada arkay sidaan hay'adaha diris wanaagan kale aan arkay opportunity fara badan aan arkay haddii jamag dhalinyarada noqo waxyaalo badan alaab waa geen kartaa sokor waa geen kartaa bur waa geen kartaa wax nimankaan haysanin waa soo fiirni labadii meel maxay kala haastaan maxay u baahan yihiin fiiri waa ku shaqaysan kartaa waxa way gacantaada xirin galay dheeraad waa shaqaysan kartaa tan kale caqabadii oo dhalinyarada haasta waxa way lack of financial waxaan dhihi lahay waalidkii dadkii badan aan fadhiisanin aqliga lagu shaqaysta marmar lacag kaash ma wax tala wax qof u baahan yahay kala jirta xuduudkii sharciga xuduudkiina aan alaalisin waa la rabi lahay tiknoolajiyadda iyo xirfadaha dijitaalka sidee ugu furi karaan albaab dhalinta shaqo la'aanta ee Mandera maadaama caalamka uu isu sii bedelayo dhankaasi iyo tiknoolajiyadda my brother markaan Dawa FM waxaan ku dhiilahay waa runtan technology-ga waa adduunku lagu tartamay waa hadda adduunku wuxuu socdaa sadi class loo socdaa gaariyaasha hubbaadiyarka iskuulli waa digital ana waxaan dhiilahay niminata way fur karaan digital kambalkan hadda waxaan dhiilahay ta arintan hadaan loobi oo job creation ku suubi for example yarkoodi wuxuu furi fa wifi wuxuu qoru yaraan 10 ilma ka shaqeynaysa nimanka saada nafkooda wifi furteen wifi intaas qof oo dhalinyarada ka shaqeysanaysa shaqo abuurka fara badan dhalinyarada waa loo subi Ethiopia Soomaaliya Kenya hadda badiyad oo aan arkaa xuduudka laba xuduudata waa lagu subi wifi gaas oo dhalinyarada badan ku shaqeysanayn tan kale hadda aan ku sheegay digitalku waa wax muhiim oo maanta horumarka lagu gaari lahay tan kale waxaan dhihi lahay dhalinyaradu waxay ku subin karaan gabadho hadda aan arkay digital had furtay digital waxaa ku furan kartaa koba gadi kartaa kobtaadii beja furni waxa furni waa ku faafin kartaa xodkaadii oo amaana ka 100 qof fiirsan lacag ku heli kartaa hadda waxaan dhihi dhalinyarada fara badan form 4 database wax adi barna fast waxa computer digital iyo digital madina ku arsato waa schoolka digital lagu qoraysta digitalka wax lagu horumarayo waxaan dhihi labada xuduud Soomaaliya Ethiopia Kenya dhalinyarada ku jiraan hadda dhalinyarada shaqo lahaan waa hadda waxaan dhihi digital ku laabta beji furta koobo ku gada dhar ku gada hatta alaabdooda ku gadi kartaa waxaan ayaa koob intaas anaay waan gadi karaa buug intaas anaay gadi karaa intaas waxaan helay way gadi kartaa hadda waxaan arkay Kenya badi Nairobi dadka badi guri fadhiyaan digital ku shaqeystaan ma yeelay bacshirada hadda socod waa bacshir digital hadda waxaan arkay horumaraysa ma yeelay hadii waxaan arkay gabadha oo saaluntan hadda oo ku shaqeysula dharkeedii alaabdeedii waxa ku faalinaysaa digital dadka TikTok ay ku faalinaysaa 100 qof imaada shaqo keela mar gabadha ila qeerasi oo kushkush la gabdho saaluntan hadii Mandera way badan yihiin magacood ma garanay moobil laakiin taqwiinka kushkush dharkooda waxa ku faaliyaan bal kale digital ku faalinayn ilmaan for example kan hadda oo TikTok waarki from program ku faalay waxa dhilay barnaamijkan wax ku bedelaysa bacshara 100 gada koob Nairobi ka keen dharkeen shaatiyalkeen wax keen digital ku gada telefoonka ku qoro marka horumarkii digital la soconay digitalku wuxuu noqonay wax dad lagu caynay wax dad siyaasadda lagu haleynay wax dadka ummadda lagu caynay ay noqonin wax security dhibaato u keenay ay noqonin waxa oo baa mushtarkii horumarka oo dhalinyarada ku fikir lahayn inaan kula tashan ana dhalinyarada si aan ku arkay meelo badi dhalinyaradan waxay ku avocado ku gad kartaa digitalka amba waa ku gad kartaa rooti waa ku gad kartaa waxyaalo badi digitalkan ku shaqeysta bacsharo ay keen kartaa thank you so much dhalinyaro badan ayaa aaminsan in waxba aysan qaban karin caawimaad la'aan iyo hanti la'aan haddaba maxaa ku dhihileed oo sidaasi say u gudbi karaan iyo jabka una noqon karaan kuwa aaminsan awoodda isla markaana inay guuleysan karaan dhalinyaradan oo aaminsan yihiin oo kwanza niyada dhalinyaradan u sheegi rabaa halan u sheegi rabaa hadduunka nin oo taajir oo lacag heli ma laha nin oo maanta bilyooniya maanta lacagta hooysa abis ugu tagtay ma laha nin walbo waxa weeye waxaan aaminsan yahay ninkan hadda for example gorofo magaaladan ku leeyahay one of them magaciis ma sheegi rabe awal bujar uu ka bilaaway bujar uu gadi jiray qaarkood Nairobi ata wax haran ka shaqeysan nimankan Nairobi saas oo kale waa adi wiligaada niyadaada oo dhalinyarada dadkay waxa aaminsantahay labadii indha ina qabtay labada gacan qabtay laba luq qabtay waa taajir waxa laga rabaa qalbigaada aaminsan in jab wiligaada niyadaada gelin
weligaadi gurigaa hurde fadhi ka kac meel walba gal shaqa raadi shaqa abuur suubi lacagta markaad dhurato mooto gada ad yarkoon arkay 5 mooto gati 6 mooto gati awal waa shaqa la'aan waan jiri example aan ku sheega nin oo Mandera kamid ah oo dhalinyaro awal waxba amisan jirin oo soo socon jir cidooda taqada karsan jirin waxa meel yar ku shaqay 100,000 weheli uu dhurtay 100,000 mooto soo gati mooto kale oo soo gati hadda wuxuu leeyahay qofkaas 7 mooto magaaladan ku leeyahay markaysa anu waxaan ilaa dhalinyarada magaalo ku jirtay inoo shaqa la'aanta waa arkaysiin maalinkaas nina foofo dhameynay maalinkaas nina university dhameynay war niidaad qalbiga ka jibinin niidaada ajibinin qalbigaada waxuna gelin lacag la'aana gelin war magaalada opportunity fara badan jirta shaqo fara badan jirta waxaan ka ana hadaan chairman-kaada oo dhalinyarada kamid ahay magaaladan waxaan dhiileen siyaasadan waxaan la daboorday siyaasadan dadka dhalinyarada la isticmaalay oo lacagta 100,000 lisina ama 5,000 lisina ama lacagta ku isticmaala wax faa'iido ma horumarkaad kamid ahay nin siyaasi waxa weydin development-kaada horumarkaada weydi maanta maxaan u qaban kartaa maanta maxaan u subin kartaa adin naftigaada ajiifanin maanta waxa ka fikiri maxaan qaban karaa shaqadeed maxaan subin karaa horumar maxaan ku heli karaa you can develop niidaada jibinin shaqa abuur fara badan jirta meel walba gal kartaa waa shaqeyn kartaa jiif ka kax nin oo lacag ku dhishta ma jira nin oo xoolo ku dhishta ma jira inay istaagto shaqaysato waa kala noocee ayaad siin lahayd da'yarta Mandera ku sugan ee aaminsan in riyadiisa ay weyn tahay oo ay macquul ahayn inuu filiyo misaba uu ka dhabeeyo ri walba way fiicanta ri walba oo nin kwanza nin oo rega riyoona arkay ani horumarkaan aan ka rabaa taladan aan iska rabaa way fiican tahay laakiin wax weyn ka fikirin وعلى يجرى هوستا دي جيران فست كفكر ريق والبو واكو قوليسان كرتا شغو والبو واقبان كرتا وح والبو وهلي كرتا ري دادو ينقوني ري او نيجاتيف ري او ميلكو قلنا قاد كان اسكا علالين نيجاتيف كان او وعد دروغان اسكا علالين وعلى عون اسكا علالين وح والبو كورمر كرنا خورمر وهلي كرتا ري دادي وري فيعان يقون كرتا شقابور فيعان وهلي كرتا بلان كان دفنس بلان فيعان نقون كرتا وعندي لاي ولي قادي نيجاتيف امسنين بوزيتيف امسي وحالا قاركود wax hoos ka bilaw wax yar ka bilaw guri aad fuul karna fuulin business ko yar bilaw hooy lacag weedi abil lacag weedi dream kaadi successful ka dhig plan kaad shooray waxa u maleeyay dhalinyarada dadka waa horumari waxa u maleeyay magaalada in opportunity badan ay leedahay Ethiopia Somalia Kenya saddex boodo oo jiiraan oo ama lagu jookar oo wax lagu jookar beeshara dalhelgay hatta niidi sakuurdan waa fiican kartaa riidaad waxay noqotaa riid oo meel fiican noqoni oo meel gaar ah noqoto maxaa dib u dhigayaa dhalinta hamigooda iyo riyooyinkooda waxa dib u dhigay waxa waay capital ahaan wa ninkan dhalinyar wuxuu rabaa wax weyn uu qabsado rabaa riidis maalinkaas uu ku riyoonaya laakiin capital ahaan yeela laakiin ahaan yeela marka waxaan ilaahay nin walba wuxuu leeyahay muraad uu leeyahay uu rabo inay noqoto laakiin ma noqonays maxay yeeli waxa ka dhigatan kale dhalinyarada riidood waxa leena dana droogadi arrintan oo security dhibaatadan oo security la'aantan jiri karta oo dhalinyarada wax walba la amsan yahay meelaad karaan tan kale dhalinyarada waxa la dhahaa tala kama boodi kara hatta waalidka lacag kuma aaminay waxa inta siyara tala ka booda Allah adduunku waxa lagu shaqeynaa maanta dhalinyarada dhalinyaradu waxa la aaminsan yahay riidood waxa dhuminay naftiga waalidka cid joogata ninka dhalinyarada horumar ma la rabo dhalinyarada inuu meel garan ma la rabo inuu shaqo abuurto lama rabo riidis marka dhalinyaradu waxa jibinay tan kale daroogadu waa haddii waxyaala xun oo waxyaala xun isku soo jirin daroogadan oo waxaan subinayn tan kale shaqo la'aantan hadda aaminsan tahay meel jiiftada riidaad way ahleeni waxaan ilaahay riidaad waxa dhibay riidaan intaas waxaan ilaahay riidaan si aan ku muujin leenin inaan oo hurdo ka kaxana oo riidaan targetkaas point aan ku taagana naftigay guray waa riidayaan lahay waa subi alxamdulillah wax walba way toosan yihiin marka waxaan dhigi leene waa arki tan kale riidi dhalinyaradu waxaa leenahay shaqo la'aantan oo markay certificate soo helaan guri joogayeen marka waxaan ilaa job creation kana helaan horumarkana helaan riidood waxaa leenahay insecurity gan amal dhibaatadan dhaas meel ka shaqeysana meel qaarkood wuxuu rabo noqonay maxay yar ka bitolahan waa markii riidan waxaan ilaa in shaqo abuurka la siin lahay oo insecurity ka bixi lahayn haddii riidan dhalinyarada nolol subin lahay hatta qaarkood waxaa la xunga gali lahay waa ka heri lahayn qaarkood meela cun subin lahay waa ka heri lahayn darogada waa ka heri lahayn riidood waa toos leedahay weligaaga adi ka shakhsiyan niijab ma la kulantay ma kula soo darstay sideese ugu baxday dhalintase kuwa niijabka la kulmay maxaad kula talinaysaa dhalinyaradii niijabkoodii iyo kalsoonidoodii kwanza dhalinyarada badi kalsooni daraa lagu riday waalidka naftigiisa cunug ma aaminsana inuu wax qaban kara gabar aan ku sheega example wiil agaari loo gadaa gabadhii cidday joogta 5 gabdhood shaqo la'aan ciddi joogta waxa la aaminsan yahay waxba ma qaban karta Kenya da horumar ma qato Dubai da Somalia da meelaan Djibouti da gabdhaha shaqeynay online ku shaqeynay TikTok ku shaqeynay meel ka shaqeynay kamid ay qaarkood familiyal waalidaal qaarkoodii way aaminsan yahay dheeradii wax ma qaban karaan
waxaan markaan tan kale dowladdii way aaminsan yihiin dhallinyaradii lacagtooda jirtay 30% allah yuudi humana loo tegay waa 70% waa ugu yaraan 4 bilyan dhallinyaradii 3 bilyan dhallinyaradii yuudka ku tiray haddii lacagta lagu diirin lahay oo dhallinyaradan wax loo qaban lahay dadkan wax loo qaban lahay nijadkan kulli way ka bixi lahayn lacagtan haddii la camal falay lahay oo countiga oo dhallinyaradan shaqo loo qaban lahay maxaa yeelay hatta dowladdu way qortay constitution 2010 waxay qoraan 30% yuudi humana leele nijabkan kalsooni darnamadan waa lagu bixinay tan kale macallimiintan dugsiga naftigooda iyo iskuulkan waxa la ilaa ilmaha ina si fiican markay iskuulka baraayeen ina ilmaha capacity building baraan development baraan horumar baraan tafadal iskuulta daadamays hatta daadacad shaqan ku shaqaysan kartaa qaarkood ayagoo iskuul dhameeyay nijab ku dhaca marka waxaan ilaa nijabkan si loogu bixinay waxa gacan qabshi wada tashad oo dowladda hay'ada waalidka kulli soo galeen lacagtan haddii isku ka keen leen waxa isku ka keen leen dhalinyarada jabo ka jabi lahayn horumarka dhalinyarada way subin lahayn dhalinyarada horumar heli lahayn shaqo habuur heli lahayn dibkan kulli ka bixi lahayn gaajidan waa laga bixi lahayn hadda my brother ku sheega Dawa FM meeqa dhalinyarada caafad ka soo baxay maanta bolod walba saddex alma jirto shaqo la'aan waxa laga mid ah aabiis wuxuu haysan karaa 100 milyan war marka haddii baa mushar leedahay dukaan leedahay lacagta bangiga kugu jirto 40 milyan 20 milyan 5 milyan 3 milyan 10 milyan remandera dadkii dhibaatada Mandheero ka Nairobi ku maqan yihiin kulli lacagtooda Nairobi geen hadii guri gorfaynta ku dhis lahayn bacsharadan ku soo celin lahayn lacagtan countigan oo banaanka aadileed Mandheero lagu soo celin lahay ma yeeli 4 bilyan oo mushaare hadii dadka magaalada jooga la isla qaadan lahayn ka waran 4 bilyan oo mushaare haday maanta mushaar ogaa 1 bilyan 4 bilyan maanta deer Mandheero heli lahayn sanad lacagtan heli lahayn lacagtan hadii Mandheero gudeeda lagu qaadan lahay dukaanka lagu gadan lahay nin walba naagtiis Mandheero Nairobi geystay adii la soo celin lahay nin walba dukaan inta ka gadan yaal dhalinyaradan kulli shaqo heli lahayn shaqo abuur ay maad lahay guri dhis ay maad lahay hadda guri Nairobi la sanaya lacagta Nairobi aadi wax walba Nairobi aadi Mandheero dad ku shilata sarf meelaysa waxaan jabka keenay taas waa markaan waxaan ilaahay dhalinyaradi oo magaaladan ku jiraan nijabku waxa uu keenay anaka amal kamid ahay ani si dhalinyaradu waan fiiri waxa kamid ahay parent waalidka naftigiisa lacag ma qabo kii lacag qaba dhalinyaradan dukaan u furo suuqa u furo qaarkood nijabka iska dhaafaan ay kina shaqeystaan maxay yeelay nin walba oo waxa lacag qabin aan shaqeysta horumar aan suubi waxaan ilaahay wada tashada lacagtan kulli isku keenay income generator tiisa subin dhalinyar nijabka ka bixinay anaki horumar helay shaqo helay wax walba ay subin lahayn tan ugu bixi lahay labadan Itoobiya labadan diris wanaagan dahaydayasha farabada waxaan qaban lahay dhalinyarada nijabaan ka bixin capacity building ban hadda waxa la jooga si lagu shaqeysan lahay program loo fur lahay oo horumar lagu gaar lahay thank you so much halkaasi ayaan ku soo afmeeraynaa halqadeena maanta oo diiradda ku saaraynay awoodda da'yarta laga filan karo waad ku mahadsan tahay dhegaysta la jaanqaadka nagala soco baraha bulshada Facebookga X iyo YouTube-ka ciwaankeena waa danta dalalka dariska ilaa iyo kulanti dambe maca salaam